ciidan macaasi ku jira ama amar diida dhexdooda ay taalo ama aan dishibliin lahayn ma guulaysto maalintii uxud waa ogtihiin kaarsadii nabiga uu dejiyey nimankii jabalka uu saaro yidhi haddaad u jeedin anagoo guulaysanana soo degana haddii aad aragtid inuu hilibkeena kala dafayna soo degana markii guusha ay timid oo arkeen gaaladii la bursanayay soo degeen asagoo khaalid ibn waliid oo markaas gaal ahaayo geesi ahay intuu gadaal ka soo wareegay ayuu ku dhardhaariyey gadaal uga dhardhaariyey muslimiinta asaa jab dhacay 70 saxaabi oo shahiideenoo xamza uu ka mid yahay 70 saxaabi iyo muscab ibn cumayr iyo marka jabkaas waxaa keenay iyo kalahaadkaas oo nabiga xataa khatar u galay oo rag inta dhexda gashadeen ay difaaceen oo halis la geliyey amarkii dishibliin la-aantii saxaabada qaar ay sameeyeenoo amarkiisa ay jebiyeen marka ciidan kasta oo si qaldan amar u jebiya ama aag aan loogu talagelin gala ama aag joogalir ka soo baxa jabay keeneen weligood wax bilaabanaya ma aha markii qaada waayeenna alla subxaanahu watacaala waatuu noo sheego wuxuu yidhi qul huwa min cindi anfusikum cid kale ha eedina idinka u sababa hurjabka idinka isugu sababa marka yaan lala yaabin marka haddii mararka qaarkood cawsweena wax ka dhaceen oo wax ka dhaceen dabeecadaha dagaalka dabeecadiisu saasay tahay ciidanku in niyad jabaan ma ahan madaxdu in niyad jabto ma ahan waa in marka xoogoo yar jug yar ay timaadaba dib laysu abaabulo ciidankuna iyagoo intii hore ka casiimo sarreeyo oo ka geesisan inay galaan laakiin khaladaadkii la galay duruus in laga qaataa la rabaa si dhegeysa marka sayd cumar wuxuu yidhi kow ciidamada irhaaq iyo daal iyo gaajo iyo ha ku dagaalgelin labo taqwada ilaahay iyo alla ku-xirnaanshada ku dadaala saddex istidlaacaadka iyo takhaaburka ama sirdoonka ciidanka xog dagaal adoon ogeyn xogta cadowga dagaal ha gelin uu yidhi macnaha waxaa la rabaa in xog la raadiyo oo meelaha iyo cadowga kala joogaan la og yahay oo aagusa i kala culusiin la og yahay si dagaalka loo galo dadka deegaanka joogaa laga samaysan karaa sirdoon dadaa la diri karaa xogaa la heli karaa diyaaradaha ayaa xogta lagu qaadan karaa hadda intii hore waa ka fawdaa xogta in la helo intaan dagaalka la gelin marka waa in la helo xog sirdoon qodobka afaraad waxa waaye magaalooyinka ka fogaada uu yidhi magaalo in la gala ma aha laba ciladooday ku sheegeen culummadu cilada koowaad waxa waaye dadka degan ayaa argagaxaaya dadkaasna in la kasbadaa la rabaa in laga nixiya ma aha ama dadka xataa way baxayaan way cararayaan in badan oo kamid a labo sirta ciidankaa la ogaanaya magaalada haddii la gado ciidanka tiradiisa sida uu yahay qalabka oo wata kulli ila magaalada dadaa ku nool xogtii o dhan cadowgaa loo gudbinaya marka magaalooyinka waa laga fogaadaa midda saddexaad magaalada waa laisku godoomin karaa marka magaalo hagelino yidhi sida cumar radi allahu canhu ee magaalooyinka dhabarka soo marsada macnaha geesaha ka mara cadowga bursada magaalada dhabarkiina soo marto markaas magaalada cadow ku jiri kara ma jiro kii ku jiro xataa ku dhuumanaya oo meelaha luqada ku jira waa ka cararaya hadduu ogaado magaalada inaan la soo gelayna laga baxaayo oo markaas hadhow inuu ku godoomo ka cararayaa qodobka shanaadna wuxuu yidhi waa inaad ka faa'iidaysatiin dadka deegaanada degan ood u naxariisatiin ood kasbatiin oo wanaag loo sameeyo dadka markaad qabsatiin magaalooyinka jooga waa in lasoo dhoweeyo oo wanaag loo sameeyo qodobka lixaadna wuxuu yidhi waa inaad maaragtay iska ilaalisiin wax ka haa dagaalka markaad gelaysiin ayuu yidhi waa inaad garba siman u gashiin oo aad iska fogeysi iska ilaalisiin in qaybna ay cadowga gudaha u gasho qaybna ay gadaal u joogto waxaa waaye saaqada maymanada iyo maysarada iyo muqadamada iyo mu'akharada iyo kulli waa isku xiraa jireen marka ilahina qur-aanku noogu sheego ya ladina aamanu idaa laqitum ladina kafaruu zaxfan ayuu yihi zaxfan zaxfigu waxa waaye ciidan garba siman u dagaalama oo haddii lug kamida ay baxdo el ay noqoto hakada la yidhaahdo kuwa kale lasoo dhoweeyo in lasoo simanto laga shaqeeyo aag kastaba dagaalka looga soo qaado haddaba waxaan rajaynaynaa ciidamadeena ilaahay inuu guuleeyo waxaan rajaynaynaa shacabkeena waxaa kaloon kusoo gabagabeynayaa aayaddii suurat alanfaal waacidu lahum waxaa lagu soo khatimay wamaa tunfiqu min shayin fii sabiil illahi yuwafa ilaykum antum laa tudlamuun wax kastood bixisiin jidka ilaahay oo jihaadka ku taageertiin ilaahay waa idin oofinayaa mana idinka dulminayo ayuu yihi muslimiinta waxaa la rabaa ciidamadeenna in kuwa qoraga sita iyo madfac oo dagaalamayo shacabka soomaaliyeed ee wiilasha iyo gabdhaha iyo odayaasha iyo culammada wacyigelin samaynaysa iyo shacabka oo dhan iyo mas-uuliyiinta dowladda iyo xubnaha baarlamentariga inay ka daba qaadaan cuntada iyo hilibka geel laga daba qumiyo loo qalo maalin kasta hilibka odgaca loo jaro buskudka loo geeyo caanaha laga daba qaado waxaa la rabaa ciidanka in la dareensiiyo kuwada dhaawacmo la dhayo tendooyin inta loo dhiso dhakhaatiirtu ay la socoto kuwa maaragtay shahiida in ilmahoodi iyo maaragtay si fiican loo waxeeyo waxaa la rabaa marka in dhammaan la dareensiiyo in ay ciidankaasu ay ummaddii oo dhan ay garabkooda ay taagan tahay oo lala socdo oo meeshii ku hedan lagula hoydo oo dhulka ay qabtaan magaalooyinka ay qabtaan markiiba ummadda joogta yacni maaragtay camiraadii hore laga bilaabo taas si dagaalku u noqdo dagaal jamaahiiriya waxaan kusoo khatimayaa walaalayaal maanta dagaalka cadowga lagula jiro waa masiiri marka dadka siyaasadeynaya ama wax ka dhex raadinaya
ama u arka guushaas inay tahay guul oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaliya uu yeelanayo ilaahay ka baqaano madaxweyne xasan sheekh maxamuud kursiga markii labaad ilaahay ku fadhiisiyey birina hadduu rabo mar saddexaad uu ku fadhiisinaa isagaa awood u leh Allah subxaanahu watacaala wixii qorana qof dhaafaysa male tartan kursigaas lagu kala qaataa weligiis lagu kala qaadan doonaa marka waxaa la rabaa maanta cadowgan ummadda halakeeyey in meel looga soo wada istaago dhammaan siyaasiyiinta aqoon-yahanka culummadu inay maaragtay ay madaxweynaha mid u duceeya mid tuutaa qaatoo la jooga mid ciidanka la socda mid wax ka taakuleeya mid idaacada soo fadhiista inta tuuta qaata dadka gubaabiya in laysu bedelaa la rabaa